السلام عليكم. نبض دمانتين ميل والبا joogtaan mar kale kulan xiiso badan. barnaamijka aan maanta idin soo gudbinayno ama aan ka hadli doono wadaacdo ka dhacday dalka Brazil. waxay ku dhacday nin dhalinyaro ah duuliye u dhashay dalka Brazil oo u shaqeynayay macdanta qodayaasha kaymaha ayaa ka badbaaday dhimasho markii diyaaradiisu ay ku dhacday dhul aad u fog oo xadla cirsra ah. 6 maalmood ayuu ku dhex socday hawdka koor intii aan la badbaadin. khatar badan ayuu galay intii uu ku jiray kaymaha. balse intaanu muuqaalka guda gelin janaalka ku soo biir muuqaalka like saar ku share garee baraha bulshada mahadsanid. Antonio Zena wuxuu dhashay dalka Brazil. waxa ku dhacay dhacdo xanuun badan. waxa uu in ka badan 35 maalmood ku jiray nolol adag. waxa uu ka buuday diyaarad gubanaysa. nolosha waa uu ka quustay marna niyadda ma uusan gashan in uu dib ugu noqdo ehelkiisa. rajadiisu waxay ahayd mid aad uga hooseysa 10%. Antonio waa duuliye horaantii sanadkan 2021 ayuu helay shaqo isagoo la shaqeynaya koox macdanta si sharci darro ah uga qoda gudaha dalka Brazil, gaar ahaan dhulka kaynta ah ee Maicuro. waxa uu ka cabanayay markaas saameynta dhaqaale ee COVID-19 uu ku yeeshay caalamka. waxa uu u arkayay in uu la shaqeeyo kooxdan inta wax iska bedelayaan xaaladda guud ahaan caalamka. shaqada uu u qaban jiray ayaa waxaa ka mid ahaa in uu safaradooda u fududeeyo goobtoodana u geeyo agabka ay u baahan yihiin. mararka qaarkoodna waxa uu u qaadi jiray shidaalka maadaama ay motooro adeegsadaan kooxdan. maalin isaga oo ku wajahan safarkiisa kuna sii jeeda goobta macdan qodista dul marayana kaynta Amazon in ka badan 3,000 oo fiidna ka sareeya kaynta kuna duulaya diyaarad yar ayuu dareemay la soo wajahday diyaaradiisa. waxaana u shaqeyn waayay mid ka mid ah motorada diyaaradda. waxa uu dareemay khatar soo wajahday. cabsida ayaa ku xoogaysatay. go'aanadiisu waxay ahaayeen kuwa ku jahwareersan maskaxdiisa, mana uusan garanayn tilaabada ku habboon oo uu markaas qaadi karo. waxa ku soo dhacayay haddii diyaaraddu la dhaxdo ilaa dhulka gubashada ay sameyn karto iyo khatarta naftiisa. waxa uu eegay dhulka si meel bannaan uu u helo. waxa uu si arkayay oo kaliya waa dhirta siman ee kaynta. dirba waxa uu arintiisa ku wargeliyay garoonadii ama raadiyaashii ugu dhawaa ee xiriirkiisa uu la sameyn karay. waxa ku soo dhacday casharo oo horay u qaatay kuna saabsan badbaadada nafta iyo in geedka timirta markasta ay ka agdhow yihiin wabiyada. waxa uu diyaaradii ku beegay dhul aad u sareeya oo geeda dhaadheer si gaar ahna geedka timirta. tan iyo markii uu noqday duuliye 9 sano ka hor, Antonio wuxuu maqlayay sheekooyin aan tiro lahayn oo ku saabsan shilalka dhimashada ee diyaaradaha. laakiin waxa uu si taxadar leh diyaaradii ugu dejiyay geedaha iyadoo qayb ay ka gubanayso diyaaraddu. waa uu ku farxay mar haddii ay diyaaraddu nabad ku keentay dhirta korkeeda, balse waxa ay diyaaraddu si tartiib ugu sii socotay dhulka iyadoo geedaha sii xoqonaysa welina sii gubanaysa. waxa uu diyaaradii gudaheeda ka sii qaatay wax kasta oo uu isdhihi karay waad ku badbaadaysaa ama waa ku anfacayaan. moobilkiisa oo dab aan sidaa u badnayn ku jira waa uu sii qaatay isagoo si degdeg ah uga booday diyaaradii. daqiiqad kadib waxaa ka kacay diyaaradii xulac aad u weyn. saacada kadib waxaa la bilaabay raadinta Antonio iyo diyaaradii. diyaaradda joog hoose ku socda oo ka socda booliska dawladda ayaa baaris ka bilaabay halkii ay ku qiyaasayeen in ay ku dhacday diyaaradda. Antonio waxa uu ahaa mid arkayay diyaaradaha, maqlayayna guuxooda, laakiin iyagu ma u suurtagelin in ay arkaan. Antonio qaylo waa ay ka dhamaatay. si kasta oo uu ku fikirayay in uu isku tusana waa uu sameeyay, laakiin duuliyaashii muddo kadib waa ay iska laabteen. Antonio waxa uu maalintaasi oo dhan joogay aagga diyaaraddu ku dhacday isagoo ka rajo qabay in la helo, balse ugu dambeyn waxa uu go'aansaday inuu ka tago una jihaysto dhanka uu ku badbaadi karo. kadib markii ay burburtay diyaaradiisii gubatayna, markii ay caddaatay in caawimaadiisu aysan soo toobaynin, aadna u rajo dhigay, Antonio ayaa bilaabay inuu cagta maalo oo socdo. wuxuu shiday teleefankiisii oo aan dab badan lahayn. waxa uu dirba galay application-ka geolocation, laakiin teleefanka oo antena iyo khadba u shaqeynayn. waxa uu application-kan u soo qabtay markii ugu dambeysay khariirada in wax ka yar 60 mayl uu u jiro wabiga Peru
ee Brazil waana aagga ugu dhow oo uu yiri waxaad ka heli kartaa dad ama dad deegaan ah. muddo maalmo badan ah Antonio wuxuu socon jiray subaxii oo kaliya isagoo isticmaalaya jihada qoraxda una socda xagga bari ee webiga. waxa uu socodka joojin jiray galabtii si uu u samaysto xero ama meel uu ka galo dhibcaha roobka. kayntan Amazon waa mid saacad roobka uga da'o waxa uu hoy ka samaysan jiray laamaha dhirta. Antonio waxa markasta ku soo dhacaysay maskaxdiisa inuu halis ugu jiro weeraryahanada duurjoogta. kayntan waxa ku badan xayawaanada dad iyo duunyo aan ka gaban. waxa uu ka fogaan jiray aagga webiga isagoo qiyaasanayay in ay biyaha ka dul ugaarsadaan duurjoogto. waxa uu seexan jiray buuraha. waxa saaxiib uusan cadowsan u ahaa daanyeerada oo iyaguna ka duuban jiray geedaha uu isku keenay ee uu hoyga ka samaysanayay. daanyeerada waxa uu u arkayay oo helkiisa sidoo kale waxa uu ka bartay cuntadii uu cunayay intii uu ku jiray kaynta. waxa uu ku arkay iyagoo cunayo miro aad ugu badan kaynta waxaana uu u arkay in mirahan aysan khatar ku ahayn bini aadamka sidoo kalena waxa uu cunto u ahayd cunista ukunta shimbiraha. 35 maalin kadib oo uu ku jiray nolol adag oo dheer waxa uu xilli habeenimo ah maqlay cod ama guux kaas oo ka soo baxaya kaynta balse jihada uusan sixi karin maadaama ay habeen ahayd. subaxii ayuu mar kale maqlay laakiin wali cabsi ayaa ku jirta codkan oo uusan kala saari karin xayawaan iyo dad waxa ay yihiin. waxa uu sii watay socodkiisa. xilli galab ah ayaa mar qura waxa ka soo baxday farxad aad u weyn. niyadiisuna ay soo noqotay rajooyinkiisina dib u soo iftiimay markii uu indhihiisa mar qura saaray nin guraya lows. waxa uu u sheegay inuu yahay duuliye diyaarad shil la galay kana rabo caawimaad isagoo durbo weydiistay lowskii. ninkan lowska cabaynayay waxa uu ka mid yahay koox beeraley ah oo ka shaqeysata lowska waxaana hogaaminaysay haweeney lagu magacaabo Maria George Santos. waa 67 jir. muddadii 3 sano ee u dambeysay waxay ka shaqeynaysay gurista lowska. kooxdii ayaa soo dhaweysay Antonio oo xilligaas miisaankiisa uu ka dhacay 26 kiilo aadna ay uga muuqatay tabardarri iyo diif dheeraatay. waxay durbo u fidiyeen caawimaad iyagoo siiyay cunto iyo hoy uu sii deganaado inta dib uu ula midoobayo qoyskiisa. xiriirka goobta oo loo adeegsado raadiyaasha la iskala hadlo. Maria George waxay la xiriirtay gabadheeda Mariana oo ku noolayd magaaladii ugu dhaweyd waxaana la wadaagtay arrinta Antonio iyadoo fartay in ay ku wargeliso ehelkiisa. Mariana waxa ku adkaatay in qoyska Antonio ay ku qanciso in Antonio wali uu nool yahay balse sheeko dheer kadib waxay ku qanceen warka gabadha. qoyska Antonio oo raadin badan muddo ku jiray waxay heli jireen fariimo aanan farxad gelin jirin sida booliiska oo u sheegay in aysan nolol ka sugin wiilkooda balse warkan u yimid waa mid ay ku farxeen. wargelinta booliiska kadib waxaa loo diray diyaarad helicopter ah oo booliisku leeyahay halkaas oo laga soo qaaday Antonio oo nolosha dib rajo uga yeeshay. waxa uu macsalaameeyay kooxdii badbaadisay noloshiisa. Antonio ayaa bixiyay wareysiyo badan oo xaaladiisa uu uga waramayo iyo sida ay u dhacday qisadiisa. waxa uu sheegay in kaynta Amazon ay tahay barwaaqo muddo lagu sii noolaan karo biyaha joogtada ah iyo dhirta ku taala oo in badan miro ah. waxa uu sheegay haddii uu ku dhici lahaa dhul bannaan ah oo cidlo ah in uusan heli lahayn iyo hoy iyo wax la cuno toona. waatahay daawade aad baad u mahadsan tahay mar haddaad halkan la soo gaartay. waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida aad waqtigaaga inoogu hortay. waadna mahadsan tahay. fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto channelkana haddii aad ku cusub tahay subscribe saar oo nagu soo biir. inta dib u wada kulmi doonana nabadgelyo.